asxaabta qaaliga badan maanta waxaa idin waday laba xikmadood oo ku saabsan saaxiibada wanaagsan. xikmada koowaad waxa waaye saaxiibada dhabta ahi waa sida gacan iyo il oo kale. haddii ay gacantu xanuunsato ishu way ilimaysaa, haddii isha ilimaysune gacanta ayaa masaxda. waxaa loo baahan yahay saaxiibka wanaagsan inuu ahaado markii xanuun ama dhib kugu dhaco oo xanuunkaas kula qaybsado oo asigana ilimeeyo oo asigana maxaa murugta ka muuqata ayaa loo baahan yahay. kaasi waxaa la dhahaa saaxiibka wanaagsan. saaxiibka xun waxa weeyaan qofka markii xumaan ama dhib ama wax aad ka hanaysid kugu dhaco oo kugu farxo kugu qoslo, kaasi waxa weeyaan saaxiibka xun ee ka fogow. xikmadeynu labaad waxa waaye qof kastaba dabeecadiisa kula dhaqan si aad u soo jiidato. saaxiibkaaga waxaa loo baahan yahay inaad ula dhaqanto dabeecadda uu leeyahay, waayo waxaa loo baahan yahay inaad ogaatid wixii asiga dhibaayo. waxaa loo baahan yahay inaad ogaatid waxa asiga oo ku farxayo, aadna samaysid waxa oo ku farxayo saaxiibka mar kastaba. like subscribe sar insha Allah.